caawa xaaladda Nairobi ma ahan mid degan hotel ku yaala ayna ka dhex rasaas ridayaan dagaalamayaal rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo iyaguna weerarkaasi sheegtay. xaaladda noocan ah ayaa timid kadib qarax gaari oo ay ku weerareen hotel lagu magacaabo D2 oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi kadib rag hubaysan ayaana gudaha dhismaha hotelka galay. dad badan ayay durbaa booliska Kenya badbaadiyeen oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sida la warinayo ku sugnaa gudaha hotelka isla markaana hay'ado kulan kula lahaa markii qaraxa iyo weerarka xigay dhacayeen. saraakiisha booliska ee dalka Kenya ee ilaa iyo xilligan hadlay waxay leeyihiin xaaladdu ma wanaagsana dad badan ayaana dhimanaya. taliyaha booliska Kenya Joseph Boynet ayaa wakaaladda Reuters u sheegay in raggii weerarka qaaday ay gacanta ku hayaan hotelka ciidan gaar ahna ay ku howlan yihiin sidii ay uga saari lahaayeen. qaabka weerarka uu ku bilowday ayaana durba laga helay xog badan. saraakiisha Kenya ayaa shaaciyay nambarka taango ee gaariga weerarka lagu fuliyay oo ahaa sida ay sheegeen KCN 340E iyo gaari kale oo xogtiisa wali la raadinayo. waxaana ragga weerarka qaaday markii ay gaareen barta kontarool ee hotelka ay rasaas ku fureen ilaalada taa oo keentay in laga furo iridka ugu horeeya qaraxa iyo weerarkuna sida uu ku bilowday. dadka gudaha xarunta la weeraray ee Nairobi ku sugan ayaana warbaahinta u sheegaya in ragga weerarka qaaday ay tiro ahaan gaarayaan 6 qof balse wali waxa laga warsugayaa laamaha ammaanka ee dalkaasi. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ayaan wali la ogaan karin dhalashada ay kala haystaan si lamid ah sida aan loo ogaan karin wali tirada saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca oo wali weerarka uu yahay mid socda.